السلام عليكم مالي wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan ku soo dhawaada maanta iyo arimaha iyo sheekooyinka ku saabsan sida qofka uu jirkiisa u ilaalin karayo barnaamijyadeennii saacadayntan ugu hadli jirnay wayaan maanta waxaad nagala socotaan channelkeena Qadar Funny Show hada channelka cusub tahay saaxiib noo subscribe garayo waxaanu maanta soo qaadan doonaa faa'iidada muhiimada weyn ay leedahay liin dhanaantu iyo biyaha yare kulul ee qandaca ah in la isticmaalo waa wax hadda Soomaalidu aad u baratay waliba lagu arkay natiijo weyn oo qofka doonaya inuu jirkiisa dhimo oo iscaateeyo inuu resultiga gaari karo hadduu barnaamijka isticmaalo wax la wada og yahay laakiin waxa ugu muhiimsan ee aan la ogeyn ayaa waxay tahay goormee ayaa la isticmaalaa bahashata goormee ay ugu fiican tahay oo jirku faa'iido weyn u leedahay goormee marka aad isticmaasho jirkaaga uu dhaqsi u la falgalayaa oo jirkaaga uu bilaabaya inuu kaloori badan gubo oo jirkaaga uu gubto oo aad samayso isdhimis weyn inaad samayso marka waxaanu eegi doonaa barnaamijka kan ee maanta dunidu aadka looga isticmaalo ee ah in aad cabto liin dhanaan iyo biyo kulul biyo kulul iyo liin dhanaan biyo kulul oo qadac baad liin dhanaan ku biiranaysaa biya barnaamijkaas adduunku waa laga isticmaalaa Soomaalidu xataa hadda way bilowday inay aad u joogtayso laakiin waxaan ku sheegayaa barnaamijkaas faa'iido weyn oo weyn baa lagu arkay kama hadlayno faa'iido barnaamijkaas uu leeyahay waa wax iska cadba liin dhanaan iyo maxaa la yiraahdaa iyo biyo kulul faa'iidada ay jirka u leeyahay waa la og yahay waliba gaar ahaan dadka iscaatayska raba waa la og yahay dadka qofka markuu rabo inuu iscaateeyo uu jirkiisa yaraysto wax uu isticmaali karo waa bahashata natiijo weyn baa lagu arkayo dadku waxay ka saacidaysaa in qofka jirkiisa uu maintain ahaado meesha uu joogo laga yaabo inaad doonayso in aad adigu ma taqaana 65 kiilo aad tahay ama 70 kiilo aad tahay ama 50 kiilo aad tahay ama dumar aad tahay oo darbin ina ma taqaana yani kabcayl inaad gashin baa doonaysaa yani sidaad u jir yani u yaryaraato baa doonaysaa qofka si ma taqaana asagoo wax cunaya oo haddana uu jirkiisa meeshiisa u ahaado oo kiilad ugu darsoomin waxay ka saacidaysaa inuu cabo bahashatan liin dhanaantan iyo biyahan kulul aad iyo aad bay faa'iido weyn ugu leedahay qofka wuxuu jirkaaga ka dhigay inuu meeshiisa joogo xitaa wuxuu ka caawinayaa inuu jirkaaga si yaraado oo aad samayso weight loss inaad samayso yani aad kiilad iska dhintana uu ka saacidayaa barnaamij loo boogo weeyaan laakiin waqtiga la isticmaalayo ayaa waxa uu yahay mid ugu muhiimsan xilli ayaa loogu talagalay oo ay fiican tahay liin dhanaantan iyo biyaha kulul in la isticmaalo xilli bay tahay oo waxa weeyaan resultigiisa waa la arkay dad badan baa isticmaalay adduunyada dhan baa laga isticmaalay result weyn ayaa ka soo baxaysa dadku isdhimaya ay u fiican tahay bahashatan laakiin waxay leedahay waxyaabo kale oo muhiim u ah jirka bini'aadamka ay leedahay oo vitamin C baa ku jiro jirkaaga u baahan yahay vitaminku markaad isticmaalayso vitamin jirkaaga u baahan oo waliba dadku laalaabitinka inuu qofka laalaabo macnuhu ma taqaana inaad horay maqaaro inaad noqotan waa ka hor istaagayaayo wuxuu ka hor istaagayaa liin dhanaantan iyo waxaan la isticmaalayo waxay ka hor istaagaysaa qofka inuu laalaabo adoo dhalinyarba waxa laga yaabaa wajigaaga inuu laalaabo ama gabar adoo laga yaabaa inuu wajigaaga laalaabo maqaari adoon gaarin buu ayaa laga yaabaa in dadku maqaari ku dhahaan yani qofka markuu duqobo da weynaado jirkaaga wuu laalaabmayaa wajigaaga kale wuu laalaabmayaa iyo maqaari adoo kaanaysaan barnaamijka xataa uu fiican yahay liin dhanaanta tan iyo waxyaa u fiican bay qayb ka tahay iyo jirkaagu meeshiisu sii ahaado oo ku xasilo oonan hilib kugu darsoomina way tahay beerka ayuu u fiican yahay isticmaalka bahalka kan ee liin dhanaantan iyo biyahan kuliyana wixiliba xataa wuxuu u fiican yahay barnaamijka kanu xanuunada muruqa xitaa waa u roon yahay oo wax badan ayuu u roon yahay laakiin haddaan dhanka weight loss ka fiirino iscaatayta markaanu ka fiirino waa waxa ugu muhiimsan ee la isticmaalaa haddaba goormee ayaa la isticmaalaa waan ognahay bahashanay fiican tahay liin dhanaantan iyo biyahan kulul waa loo bogoy waa wax kale way fiican tahay waan ognahay laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay xilligee ayaa loogu talagalay in la isticmaalo xilliga loogu talagalay in la isticmaala waxay tahay ma taqaana subax hore marka la soo kaco subax hore marka la soo kaco adoon afkaaga wax saarin haddaad liin dhanaanta iyo biyaha xoogaa qandaca aad cabto waxa weeyaan jirkaagu aad buu shaqeynayo waxaad gubaysaa hilibkaagu hilib wax badan oo loos ayaad samayn doontaa oo jirkaagu waadna arki doontaa salteeka haddaad joogtaysa lama rabo waxaa la rabaa jidhka inaad qayb ka dhigtaa la rabaa waxaa la rabaa subaxu markaad soo kacdo biyo kulul oo qandac ah meeshaad ka cabayso biyo qandac ah iyo liinaan isku miro subaxii waa xilliga ugu fiican khasab waa in lagu bilaabaa xilliga hore subaxii xilligaad soo kacdo biyo qandac ah iyo liinaan isticmaal isku miro then goormee kaloo la isticmaalayaa cuntada ka hor cuntada ka hor tusaale aan qadada ka hor yani waad isticmaali kartaa waa loo baahan inaad isticmaasho waxa weeyaan waa aad buu ugu muhiimsan yahay iyo cuntada kadibba
markaad cuntay badar badan wax markaad liintan iyo biyahan kulul aad isticmaashana qadada kadibna waa la isticmaalaa yacni cuntada ka hor iyo kadibna waa la isticmaalaa subaxii hore lagu bilaabayaa kadib cuntada intaad cun baa lagu bilaabayaa kadibna mataqaanaa markaad cuntada cuntana waa la cabaa then kadib habeenkii markaad seexanaysan intaadan seexanna biyo kulul iyo waxaad kusoo xiraysaa jadwalkaaga iyo maxaa la yirahdaa liin dhanaanta tahayo aad iyo aad baad natiijada ka u gaari doontaa waad arki doontaa oo waad yaabi doontaa yaa barnaamijkan wuxuu u fiican yahay dadka diet ka sameeya uguma sii jirtaba dadka diet ka sameeya ee only protein ka isticmaala oo baastada iyo bariiskii meelaha iska dhigay haddaad baasta iyo bariis meel iska dhigto ood diet isticmaasho ood protein cunto oo hilib aad cunto ood khudaar cunto oo aad ma cunta khudaartaad cunto mooska iyo waxyaabaha kaad cunto oo hilib iyo adu qudrad iyo hilib iyo malaay iyo dooro iyo waxa hadaad isticmaasho waa dietka protein dadka isticmaala oo barnaamijkan liinta kusii dara kiilaad badan baa ka dhacaya walhuwa kiilaad badan baa ka dhacaya kiilaad hilibyaala ka dhacaya isbuuci 3 kiilaad ridaysa markaad dietka saxda isticmaasho la isku caatay markaad isticmaasho weeyaan yaa dad waxaa jira marka dietkan isticmaalin aniga ma taqaana badarkiiga cunaya miyaan wali miisaankii ku ekaan karaa amaan iscaateyn karaa waa la samayn karaa tusaale ahaan oo kale maalintii oo kale markaas wixii soo kacdo biyaha naanta iyo biyaha kulul iyo liintaad isticmaasho kale oo hal mar baad qadaynaysaa maalintii hal mar waad cunaysaa waad qadaynaysaa markaad qadaysana yaa biyaha dhanka baad cabaysaa kulul baad cabaysaa habeenkiina protein baad isticmaalaysaa iyo habeenkii yacni lama ogolo cunto shub in la cuno bariisi baas waad ka fogaanaysaa adigu labado xabo kun iyo waxoogaa yar qudaar baad taabanaysaa kadibna waad ka seexanaysaa waan isticmaali kartaa marka habeenkii taada seexan marka xilliyada loogu talagalay in la isticmaalo waxa weeyaan waqtiga saxda ah subax hore markaad soo kacdaad isticmaalaysaa biyahan kulul cuntada ka hor hadda waa ka bixi kartaa xataa cuntada kadib baad ka dhigi kartaa iyo habeenkii markaad seexanayso mid ku soo xirto jadwalkaaga habeenimo markaad seexanayso biyahan kulul iyo liin dhanaanta hadday serious ka tahay iscaatayntu haddii aad joojiso baastii bariis cunowgooda oo aad ku bedelato protein diet oo ah hilibka maxaa la yirahdaa qudaarta mooska doorada malaaygu haddaad isticmaalayso oo barnaamijkan biyahan qandaca iyo liinta aad ka dawado xilligeedan aad ku cabto waxa weeyaan fit toddobaadkii 3 kiilood ridaysaa laakiin dadku badankooda mid ma wada sameeyaan diet ma wada sameeyaan dadku waxay rabaan iyagoo wax cunaya inay caatobaan waa sida aan anigu barabo jeclahay weeyaan okay maalintii waxaad samaynaysaa hal mar shub iska dhig yani hal mar qaday maalintii hal mar shub iska dhig hal mar cunta full cun kadib biyaha liinta dhanaantaada iska cab habeenkii markaad seexanaysana baay hadda ku karkarisana ama dadka koobko shaah wiil kastoy fiican tahay waxyaabo protein la isticmaalo ama dad heli karto mataqaan ukunto yar ama halkood tufaax dad heli karto adigu xoogaa loos dad heli karto waxoogaa yar baa la isticmaalaa biyaha jadwalkana sidaa u yeelo waa wax loo bogayo xilliyada la isticmaalo waa subaxii cuntada kadib iyo habeenka markaad seexanayso intaad dad yeesho adoo wax cunayd weli caatoobi kartaa adoo wax cunayd weli isdhimi kartaa adoo wax cunayd weli waxaad awoodaa inaad meeshaada sii joogto adigoo haddii aad sii samaysa dietka saxda oo yacni aad ka go'do waxyaabaha qaar loo ogolayn dad qofku markuu iscaatayn bariiska baas dad ka go'dana ay mar dhow baad dhameynaysa howlgalka iscaateynba